Guud ahaan ummadda muslimiinta ee ku dhaqan waddankani Maraykanka ayaa si aad ah ugu dabaaldegay munaasabadda ciidda barakeysan ee Ciid al-Fidriga. Wariyaasha telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somalilan ayaa booqday magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee ku dhaqan dalkani Maraykanka ayaa si ballaadhan looga dareemayay dabaaldegga Ciid al-Fidriga. Subaxnimadii hore waxaa meel walba lagu arkayay dadka Soomaalida oo u diyaar garoobaya ka qaybgalka salaada ciidda. Meelo fara badan oo ku yaala magaaladani Minneapolis ayaa laga tukaday salaada ciidda. Xarunta ugu weyn ee lagu qabto shirarka oo la yidhaahdo Minneapolis Convention Center kuna taala bartamaha magaalada Minneapolis ayaa ahayd halka ay dadka ugu badani ku tukadeen. Markii ay dhammaatay salaada ciidu, dadweynaha oo ay wejiyadooda ka muuqatay farxad iyo raynrayn ay ku soo dhaweynayaan munaasabadda Ciid al-Fidriga ayaa waxa ay bilaabeen inay soo hambalyeeyaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga Mustafa Xasan Axmed oo ka soo qayb galay maanta konferenska sanadka ciid dadweynaha Soomaaliland waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan sanadkiisa kale ilaahay nabadda nagu gaarsiiyo aad baan TV-ga Soomaaliland TV u mahadsan yahay sida sharafta ugu soo galay ciid mubaarak markale waxaan leeyahay ciid mubaarak kul caam wa antum bikhair. Assalaamu calaykum. magacayga waxaan Ismaaciil Axmed Jaamac ciidan waxay ciid aad iyo aad u ballaaran ummadda Soomaaliyeed ama muslimka ahayba si aad iyo aad u ballaaran uga soo qayb galay xafladda marka horeysa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Somaliland TV oo noo suurtageliyay inaan ciidan kala qayb galno ummadda reer Somaliland meel kasta ay joogaanba wallahi ciidani waxay ahayd ciid aad iyo aad u qurux badan mujtamac aad u fara badan oo ayay isaga yimid magaalooyin fara badan si aad iyo aad u qurux badan ayay ciidii noogu dhacday aad iyo aad bay dadku farxadda ka wada muuqatay waxaan halka ka hambalyeeyaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaanba gaar ahaan shacabka reer Somaliland dibadda iyo gudahaba waxa kale si gooniya u salaamaya family-gayga iyo dhalinyarada jaaliyadda reer Somaliland ee ku sugan gobolkan aan ku noolahay Minnesota mar labaadna waxaan leeyahay TV-ga qaranka aad iyo aad baa u mahadsantihiin. bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa weeye Cabdikariin Cabdilaahi Yuusuf waxaan ku noolahay magaalada Minnesota gaar ahaan Minneapolis sida halka arkaysaan boorkan ka dambeeya maanta waxa weeye meeshii ugu weyneed ee ku tukadeen ummadda muslimiinta ah gaar ahaan ay u badnaayeen Soomaalidu waxa weeye convention center-ka weeye meesha ugu weyn waxa weeye si wanaagsan ayaa maanta loo yeelay bari hore waxa la oran jiray fariiqooyin kala duwan iyo diintu leedahay oo qaar 9 qaarna 30 tan runtii waxa weeye mid hal mar la wadiiday bay noqotay adduunka oo dhan oo 30 la dhameystay taasan runtii idii kala duwan la oran karaa waxaan kaloo halka ka salaamay dhammaan inta magacayga mooda taqaana ugu horeeya family-ga aabaha iyo walaaladay iyo dhammaan eedooyinka iyo adeeraday waxaan kaloo salaamayaa shacabka reer Somaliland meel kasta ay joogaan gaar ahaan kuwan jaaliyadda reer Somaliland ee halkan nabad nool iyo madaxda dawladda ugu horeeya madaxweynaha Axmed Maxamed Siiraan iyo marwada koobaad Minneapolis iyo madaxweynaha Saylici waxaan kaloo halka salaamayaa jaaliyadda reer Somaliland si gaar ah salaamaya waxaan kaloo salaamayaa TV-ga qaranka oo noo soo tabayay maanta halkan si aan farxad ku jirto iyo raynrayn ay naga duwan barnaamijkan online ah oo runtii message-kan gaarsiinaya qaliga dibadda waxaan leenahay in aad ayaan ku maadnacaynaa isla wanaagsanaaga aan nooga soo qabshan badan ciidda aad ayaan salaamay mar labaad ciid mubaarak kullu caam
jawi aad u wanaagsan ayay ku soo gabagabowday munaasabadii ay guud ahaan dadka muslimiinta ee ku dhaqan gobolkan Minnesota ay ku xusayeen maalinta koowaad ee munaasabada Ciid al-Fidriga. Cawaale Cabdilaahi Cawaale, telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, Minneapolis, Minnesota.